madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii saakayna baaq aan u jeedinay si degdeg ah uga soo jawaabay isla markiina taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya soo diray amarna ku bixiyay ciidanka meesha in laga saaro wixii jibintii la wadayna la joojiyay hadda inta naga jabanna insha Allah hadda liyaado waxaan madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa maadaama anaga iskuul iska tabar daran aan nahay in insha Allah hadda liyaado wax nagala qabto waayo waa 100 arday meel seexanaysay oo jiif ahayd ayaa burburtay saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa tallaabo sharciga laga qaadayo oo aad maqli doontaan ilaa berri subax haddii ilaahay nafta lagu gaarsiiyo tallaabo sharciga laga qaadaya taaka horta waa carisnayn laakiin hadda waa faraxsannahay madaxweynahana waxaa noo qabtay madaxweynahana waa mahadsanyahay garab taagannahay maxaa yeelay waxaan garab taagannahay inaan ardadeenna tayeeno waxaan garab taagannahay ardadeenna inaan siino mustaqbal wanaagsan inaan siino ardadeenna oo noloshoodana ku dhistaan dalkoodana wax ugu qabtaan caalamkana kula tartamaan